السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kugu bari doonaa muuqaalkan isaga xirfad aan oran karo waa xirfadaha ugu muhiimsan ee nolosha qofka hadii uu barto ay wax badan u hagaagayaan. Hore waan uga soo hadlay laakiin imka si qoto dheer baan u gali doonaa. Xirfadda iyadahi hadii aad si fiican u barato maalintaada iyo sanadkaaga iyo noloshaada way ku hagaagayaan. Hadii aad ku darantay ku liidatana waxa huwa inaanad geed ka gaarin weliga. Talo xirfadaasi maxay tahay? Sisano baran karaa. muuqaalkan isaga aad ku baran doontaa. Aan ku rajaynaa inaad amni amaan bashbash iyo barwaaqo ku sugan tahay. muuqaalkan isaga waxaan kugu barayaa xirfadda weyn ee loo yaqaan maareynta waqtiga. waxa suurtagal ah inaad tiraahdo mawduucan in badan baa laga hadlay dadku way ka hadlaan muhiimad badan aniga agtayda ay male. haddaan ku muhiim badan aanu ku lahayn waad ka tagi kartaa muuqaalkan waad iska deyn kartaa laakiin aniga haddaad talaad iga rajaynayso haddii aad xirfaddan iyada aad barato amaba ilaahay wax uu kaaga furo wax badan baa nolosha ku qabsoomi doona. waayo maareynta waqtigu waa maareynta nolosha. nolol wanaagsan baddoonaysa Soomaha waqti wanaagsan samayso oo diyaarso oo qorshayso. aan ku soo dhawaado maareynta waqtiga markaan leeyahay waxaan u jeedaa waa maareynta hawlaha iyo arrimaha ay qabanayno maalintii. Bimacnaa arday baa tay tusaalahaan kale imisa 10 baan akhriyaa imisa cutub baan dhigtaa imisa cutub baan daraaseeyaa imisa dugsiyo kala duwan baan tagaa maxay bay tiraan maalintii qabto si aan arday fiican u noqdo. hawlaha ay tahay inaad qabsato ayaa loo yaqaanaa maareyntooda maareynta waqtiga. oo waqtiga laftiisa lama maareyn karo. بمعنى هذا ترى هذا ساعدها يكون مارين كرا ما مارين كرتيد ميل ما ديجين كرتيد ما هيكسن كرتيد سيدا وجد ومارين تهولها إنه قبنا إنه وقتك أي الله يقعنا مارين توقتك إن أنا ظهر سيدا هو قنبنا ملايين هولها إنه قبنا إنه وقتك الحديثة مارين تودا أي الله يقعنا مارين توقتك نكسي صعب واحد مهم هنا دقته إن وقتك أستام أيولي حلي أستام يو صفات السجا وقارو وحلا ودقة أنا تشيرن كو وقتك وديرية تدق صعدا نبي نوح عليه الصلاة والسلام أيها حلويدي وقت ملك الموت كو يمد نبي نوح وإمسا يهترتي وحلو وحا أنشري صدح بقول يكونتن صدح بقول أوصلنا كهر إنتان دينتا ليديبين يسقال بقول يكونتن صنو وأن دينتا يدعو الدعوة يصدح بقول يكونتن صنو ودعوة دي كتب يطوفان كي أنسين ولا هذا تقدرته وكون يلح بقول صندوق وحنا بل كورن وقتgaas dheer ee inta leeg maxaad ku sifayn kartaa waxaan ku sifayn karaa sidii qol laba albaab oo kala leh qol ama maqsin laba albaab leh kaasan ka soo galay ka kalena waan ka baxay intaasan ku qiyaas karaa in waqtigaygu ahaa bimacnaa wuxuu sheegay yaraanta iyo in wax aad u yar uu ahaa waqtigii uu nool hadii isagoo nool 1600 sanadood sida ugeed waqtigu aad buu dheereeyaa waqtigu arrin kale uu leeyahay waqtigu ma soo noqdo wadweynaan ما يرانيس سنة باكو كردي سنة كاكو إماي واحد كو سعون دون تغييري ذا مرة بغيري ذا كعرر رميس وقت دينا كليو صعودا لبا دينا ما صعودا وقت استانتس waxa kamida lama kaydsan karo waxa tiraahdo maanta waxaan urursanayaa inta saacadood ee bila amalka aan hay ee aan hawli ii oolin ama ba arday baabatay waxa tiri waxaan urursanayaa soddonka maalmood ee fasaxa ku jiro ee aan shaqo qabanayn ama dugsiga aan tageen baan urursanayaa si maalmahan mashquulka u badan aan u isticmaalo waxa la oran wallahi ninkii cabdi ama inantii xalimo way waalatay baa la oranaya wahay waqtiga lama kaydsan karaday ugu dambeyn waqtiga astaamiisa waxa kamid ah waa rasamaalka ilaahay qof walba uu siiyo ka qaniga ah ka faqiirka ka caafimaadka qaba ka xanuunsanaya ka dheer ka gaaban ka xooga weyn ka xooga yar la ka cad ka madow afrikaanka yurubiyaanka qof kasta adduunka jira waxa ay ka siman yihiin waxa weey rasamaalka uu ilaahay uu siiyay ee waqtiga taasoo qofkuna lacag ku dhaliya ama uu ku dhaliya aqoon ama uu ku dhaliya guul ama uu ku dhaliya horumar ama ba khasaariyo hoog uu ka faa'iida sida awgeed dadku way ka simeeyeen oo qofina qof man dheera laakiin sida loo kala faa'iideysto ayaa la isdheeryahay taasina oo kaaga warami doona insha Allah ta'ala wuxuu qofkiisa weydiin karaa markan waqtigayga aan maaraysan maxaa faa'iido ah maxaan ka helayaa waa su'aal wallahi wanaagsan ilaa xad wali wanaagsan ana ku sheegay markaad waqtigayga aad maaraysanaysid waxaad ka faa'iideysaa waxa kamid ah waxaad arkaysaa in noloshaadu ay gacantaada ay ku jirto ilaahay suko بمعنى إلهي كسكو سبحانه وتعالى أو إله تي وحول بقدرية وقعنتي سيكون جرت ملكوت كأدون كورني أنت كسكو واحد قيسة إن النلاشة وتميدت أدوم معمولة وواحد دون سنة قبضتك وعد وواحد دون سنة قبضتك وعد ما تهيد قف وحلو يري أما تتكو حيطانان والسمية ما تهيدي واحد أدوم دون سيات سمينسة تسندن كده يلا أنت واحد مركز دركت وقت جاء تصفي عنا دوما ريسني سيد وح أرنت سيكون أبورو سكالسوني بوحدة إن أتهاي قف نفتي سكادك أو قف مرك وقت يسوطيع حلقو سكعنته أذوق مركز وقت جاء باريسته حتى تنتد مالن لن فكيس عيار كوبه بيه أو كو قرشه
faakahaysa dad xataa maalin dhanaad siiso oo adiga laakiin ka soo go'day waxaad arkaysaa inaad tahay qof waqtigiisa ku tasarrufay oo isagoo halku doono gelinaya oo aan ahayn qof la qasbayo oo la wado taasina waa arrin kale oo cajiib ah runtii arrinkay dadka oo dhan ay isku raaceen waxa kamid ah in guushu ay saaxiib ay la tahay dadka waqtigooda maareysta oo waqtiga haddii aad maareysato fursadaha wanaagsan iyo guusha nolosha ayaad u dhowdahay waxaanad uga dhowdahay ka kale aanu ilaahay arrinta aan ku manaysan arrinka kale isaguna muhiim ah jiraba qofku markuu waqtigiisa u maareysto wuxuu helaa waqti intii hore ka badan iyadoo marka hore baad 24 saacadood haysatay ayaa laakiin markaad maalintaada si fiican u qorshayso waxaad arkaysaa wow saacad bay soo baxday maalin walba saa'ida oo awal arki jirin meeshay marto 2 saacadood baa ku soo baxaysa 30 daqiiqood wax faa'iido la aad ku buuxisaa ku soo baxaysa marka waxaad arkaysaa in maareynta waqtiga waxyaalaha laga faa'iido waxa kamid ah you will have more time than the usual waxaad helaysaa waqti ka badan sidii caadiga ahayd aan ku baro hababka wanaagsan ama fiican ee fududeed samayn karto ee aad waqtigaaga ku maareysan karto waa farsamooyin aan rajaynayo inay wax badan ay ku kordhin doonaan insha Allah ta'ala habeenku inta aanu dhamaan ee aanad bari aanad gaarin waxaad ku dadaashaa inaad qorshe dejisato qorshahaasi wuxuu noqonayaa 3 arrin oo muhiim ah oo ay tahay inaad bari samayso arrimaha caadiga ah inaga daa haddaad arday tahay iskuulkaaga iska daa haddaad hooyo tahay la xoogta dubisa iska daa haddii aad shaqaale shaqadiisa iska daa yacni kuwa qori baan ka hadlaya qor arrimo kale oo ka muhiimsan oo iyaguna ay tahay inaad qabato way kuwa nafta la barato marnaba seegi maysid arrimaha caadiga ah waxaan imika doonayaa inaad qorto 3 arrin oo aad jeceshahay inaad maalin walba aad qabato ama aad jeceshahay inaad samayso qoro habeenkii markaad sii seexanaysid mobilkaaga aad ku qoran karta buug yar baad ku qoran karta ku dadaal inaad qorato iska daa maskaxdan ku haysanayo qor taasi waxay ka sanaysaa bari marka la gaaro inaan noloshaadu ama naftaadu fadhiisanaynba ilaa 3 arrin ee xalay ay qoratay ilaa hirgeli 2 kalaahadu waa arrin aad muhiim ah cid walibana ay ogtay gaal iyo islaamna ay ka sheekeeyaan rasuulkuna kaleey salaatu salaam wuxuu inoo sheegay in ummadiisa loo barakeeyay kalaahadeeda sidoo kale waxaad ku dadaashaa hortada inaad ku noqon haddii awal seexan jirtay waxaad ku dadaashaa inaad xilli hore aad kacdo hawlaha ganaad hore u qabsato marka waxaad arki doontaa waqtigeeda awal haysan jirtay in ka badani inay ku soo baxayso 3 waxa jira wax loo yaqaan to do list waxa loo jeedaa waa hawlaha iyo arrimaha ay tahay inaad maalinta iyada aad qabato waxa loo yaqaan to do list marka waxaad ku dadaashaa sideen horeba u soo sheegnay 3 qodob ma aha arrimaha kale muhiimka ah ee noloshaada caadiga ah layliski ka shaqo arday baad soo halin kale layliski ka shaqee assignmentkii diyaari imtixaanka u diyaar garow hebel la hadlo buugi ka soo qaado arrimaha doonaysa inaad maalinta qabato ee aanay baridaada aanay gaarin meel ku diyaarso mobilkaaga aad ku qoran kartaa buug yar baad ku qoran kartaa marka mid walba aad qabatana waad jeexaysaa bimaana ticket arrinka wala dhameeyay dabeedna waxaad dareemi doontaa markaad mid walba sida aad jeexayso macaan baad arkaysaa in yani wax badan ay ku qabsanayaan wow wallahi kaana waan hirgeli maalinta liiskaad maalinta qortay ku wada hirgalaan boqor baad cid ka sareysa ma jirto qodobka afraad ku xiga waxa loo yaqaan ABC technique oo macnaheedu noqonayo waa kala horreysiinta hawlaha ku yaala tusaalahaan oo kale hore waxaan soo sheegnay in la jirto wax loo yaqaan to do list arrimaha ay tahay inaad maalinta aad qabato arrimaha sidaa ku wada deyn waxaad ku dadaashaa siday eedu ay bida uga horeyso biduna ay sida uga horeyso inaad arrimaha aad u kala horeysiiso siday kugu kala muhiimad badan yihiin oo tusaalahaan oo kale hawl adag oo khatar ah hadii ku sugayso arrinta horeysi ardaybaad tusaalahaan oo kale hadii imtixaan bari laga qaadayo arrimaha waxaad ugu horeysiisaa inaad caawa aad ku dadaasho ama maanta bari intaan la gaadhin inaad xoog aad saarto waxa imtixaanka laga qaadayo dabeedna waxa kale ku xiga ku sii xigsi marka u kala sarreysiyaan isdhex oolin waxa la diidan yahay inaad arrinkii ugu muhiimsan intaad u hooseysiiso waqtigana uu kaaga dhaco 10 ama 9 arrin ee ka sareeya tii muhiimka ahayd iyadoo ku sugaysa marka waxa muhiim ah tagu muhiimsan ku horeysi Pomodoro technique waa farsamada loo yaqaan farsamada Pomodoro waxa loo jeedaa waa farsamada hawlaha ay tahay inaad maalinta qabato inaad waqti cayiman aad u qabato tusaalahaan kale waxbaad akhriyaysaa soo maaha ku dadaal in waqti cayiman 25 daqiiqo oo kaliya aad qabsato dabeedna waad buugi la soo baxaysaa nafta waxaad u sheegaysaa 25 kaas oo kaliya wax qabanaya inta kalena waa iska nasanaya dabeedna 25 kiibaad wadaysaa markay gaadho ee saacadu dheedheed ay kugu tiraahdo yarka 5 daqiiqo socodso koobiya ka soo gaarsi 5 daqiiqo nafis qaado dabeedna haddana 25 kale halkii ka sii bilow haddana sidaa u wad haddana 25 kale markaad 5 jeer oo min 25 daqiiqo aad fadhiisatana wax badan baad qabsatay ilaa 20 daqiiqo fasaxana marka qaado marka Pomodoro waa farsamada 25 daqiiqo oo shaqo iyo 5 daqiiqo oo nasasho 5 jeer markaad saad ku celisana oo noqonaysa ilaa 3 saacadoodna waxaad iska nasan doontaa idamka leh
ilaa 30 daqiiqo waad ka nasan kartaa oo faa'iido ah taasina waa farsamo kale oo ka saacidaysa inaad fadhiisato hawlaha inaad qabsato qofku markuu hawl qabsanayo waxa jirta wax loo yaqaan distractions oo macnaheedu noqonayo waxyaalaha ka fogeynaya ama ka jeedinaya arrimihii ay ku taalay ardayo kala tahay Facebook baa ku sugaya TikTok baa ku sugaysa YouTube baa ku sugaya WhatsApp baa ku sugaya inaad video daawata ku sugaya inaad asxaabtaada raacida ku sugaysa arrimaha faraha badan ee hadafkaaga ka leexinaysana intaad meel ku qorato waxaad ku dadaashaa intaad shaqadaada aad ku jirto in aad dhamaantood aad meesha ka wada saarto arday hadaa tahay hadaa hooyo tahay hadaa aabba tahay hadaa ganacsade tahay hadaa arday tahay waxaad doontid noqo ku dadaal waxyaalaha hadafkaaga ka joojinaya amaba aad doonayso maalinta inaad qabato ka hor istaagaya meesha ka saar yare weeraha dad meesha ka saari karayn Facebook iyo TikTok tan oga hinaad ka gooyi karayn isku day inaad waqtigooda aad yarayso qofku marka uu doonayo inuu waqtigiisa ka faa'iideysto waxyaalaha aadka looga faa'iido kamid ah waxa loo yaqaan waqtiga dhextaalka ah waqtiga dhextaalka ah oo waqtiga aanad hawl rasmi aanad qabanahayn aad hawl aan idhaahdo aad safar baad ku jirtaa socdaal baad socotaa baskaad saaran tahay qof baad sugaysaa meel baad koob shaah ku cabaysaa waqtiyada dhextaalka ahna ku dadaal inaad ka faa'iideysato hooyaaba tahay intaad guriga aad joogto hawlaha guriga aad qabsanaysid waxaad ku dadaashaa in dhaguhu ay wax kaaga socdaan oo aad wax dhageysato oo jaaniska intaad wax qabanaysidna halkan aad hawl ka wado marka waqtiga dhextaalka sida la kala faa'iideysana wala isku dhaafaa waqti yarna ma ahay waqti runtii aad iyo aad u badan inta aad baska raacayso inta aad lugeynayso inta aad guriga ka shaqeynayso inta aad qof sugayso inta aad shaah cabayso marka ku dadaal waqtigaana inaad wax fiican aad gelisay damka alle arrinka ugu muhiimsan ee waxa weeye aan meesha kugu sheegi karo waxa weeye isla xisaabtanka in aad ku dadaasho in aad habeenkii ugu yaraan ama toddobaadkii hal maalin aad mar fadhiisato saacad kugu filan hadaad maalintii aad mar xisaabinayso 10 daqiiqo kugu filan jadwalkaaga saabig maxaa ku qabsoomay maxaan ku qabsoomin maxaa xaraf ku kordhay maxaa xoolo ku kordhay maxaa اللهم صل على محمد إن وحقبت كوكر لي محا عمل صالح كوكر لي إصلاح حسابين تحسين وحي كان سنة إن مالنت الطبيعة حتى هاتي مالنت أنا يكاحو ماتو أنا يكاحو مان أما بقى جيرانا تكون تداشو إن مالنت هذا الطبيعة تكون تسو وحوي ما انتظي كاحو ماتي يكاخربنا هل كيولي ماتي وهل كان قضب كانوا جدا بيوحى وكلية هي قرشة وقت كاجا قرشين توحى نقول نسا أفر مستوي كلي على نسا قرشها سنة لها يقرشها بالله يقرشها تضبط لها يقرشها مال لها sanadkii waxa doonaysaa inaad qabto meel ku qoro sanadkii markaad aragto wixii aad doonaysiin waxa ahaana 12 u qaybiyo bil walba waxa kaaga soo hagaagayna meel ku qoro bil kastana sidaa u qaybiyo 30 cisho u qaybiyo wixii hadaf ku yaala in aad qabatid adoo ka soo eegay sanadka ayaad iyadana aad meel ku xariijinaysaa dabadna maalin walba waxaad ku dadaalaysaa in ahdaafti bisha aad gaadho dabadna ahdaafta bisha markaad gaadho hadana kale ahdaafteeda aad gaadhaysaa saasaad ku wadaysaa qorsheyntu waa cilmi muhiim ah in qofku barto sidaa ugeed ودي سو شيء كنت هدي مهم يهي حبك قفك وقرشي سنة سنة كيسة يجود هم بنولشيسة هدي مهم أكتر يكون هاي سن مقال وصل سميو هالكوسة دي بسوا شيء كنت هدي أتبدو ما هتصنتي هدي وح سؤالات هيسو هدي وح سو تشيدنا هيسو يهدي قطب سجارة أو ده شيء وتشرو أنت بحاجة وصل صار كنت هيدا مكلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته